ku dhow hal sano ah ku xidhnaa xabsi ku yaala dalkaasi Iiraan ayaa xalay laga soo daayay kolkii ay galaangal samaysay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhalintan ayaa la sheegay in xaalad adag kala kulmeen xabsiyada dalkaasi. haddaba dhalintaasi ayaanu kala sheekaysanay waayahoodii xabsiga iyo bal guud ahaan dareenkooda. Deeq Maxamed Cali oo ka mid ah dhalintaasi ayaa u waramay wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil. waxaan laga soo qabtay dalka Iiraan ee xuduudda Turkiga kala wadaago sababta loo soo qabtayna waa dareemka dad taariibyaal oo Turkiga sii galayaan ahayn. waxaan ku xirneen gobol xuduudeed ku yaala maxaa la jiray oo la yiraahdo magaciisa Oromiya kala wadaago dalka Iiraan sidoo badan ku xirneen halkaas waliba xaaladeena ay xaalad aad u daran waliba dhibaato badan xitaa in xabsiga dhiciisan waana lagu geystay dhamaanteen. waxaad sheegtay in xadka Iiraan iyo Turkiga u dhaxeeyo la idinka qabtay halka u socoteen markaa Turkiga u soconay Iiraan baa ka sii baxeenay Iiraan baan soo galnay marka xagaa ka timaadeen markii hore walaal Muqdisho ka soo duulnay badankeena hal qof oo Hargeysa ka soo duulay inta kale Muqdisho ka soo duulnay Ciraaq marka ka soo degnay ayaa diyaarad ugu dambeysay dhulkaan ku soo galnay Iiraan markaan soo galnay waxa qabadaan kala kulnay ma jir laakiin safarku aad iskaga dhib badnaa iyo buuro iyo rafaad badan aan soo marnay iyo baraf badan laakiin markaan Iiraan soo galnay soo galitaanka Iiraan wax dhibaato aan kala kulnay xagga dawladeeda ma sii jirin laakiin ka bixitaankii markaan ka sii bixayna Turkiga aan sii galinay caqabad la kulnay inay militariga dalka Iiraan ay qabtaan markaad xabsiga ku jirteen sidee la idin la dhaqmay markaa والله إن وقت حاجة عنتظر أي حاجة محلية شري كيف كلا كيف كان أدب وليته وهلا حل حبة بساط توقف لوسع حناي وهل حبة بساط دول كويه دول سبرة نستيبونا جنا بدنا نكود حرنين أو أفريقيان بدنا أو إدجارس إن دول كود حرنين ولي ما كان حبسي قررنا كود حرنين أفريقيان كود حرنين أنا جو مش كود حرنين بدون كود يرودو دي بقول يمي أو كلا وضع بحي أنا كنا ممكن دنبه ونسوي رجيو حلو سوي رجينا عاصمة طهران قبل ودو وفرمين اللي يرادو قبل كاسم عن كل حرنة مدشان بلودا شنطة بلودا قبل كل حرنة بان وحن هلنا قط عن استعمال كرو لكن ما كان أرميس ديد بلود كل حرنة وح قط حتى ما يسمى قلين لدينا حتى إن اللحرنا حتى وينودي وح حتى حرير أين نسمينه هنقطة الدولة هنقطة أهلك وحرير وينودي لكن ما كان لكن فرمين أيان هلنا وح قدا ما كان حرير سمينه أهلنا الله صح أهلنا الله صح حرنة أهلنا بقى تي في ده بدن كل صوف فرستي dawladda la hadlay wixii markaa ka dambeysay dawladdeena codkeena maqashay dawladdeena dhaqaaq fiican sameysay marka wax Soomaaliya meesha idinku ma ku xidhnaa ma jiraan Soomaali kale oo halka laga qabtay oo ku xidhanayeen oo sidiina wali la soo dayn may tirasdeed Soomaali aan ahayn waliba sideedan mar lama wada qaban laakiin marba qeyb baa la soo qabtay oo saddex qof iyo laba qof waxba u wada soconay oo nin walba macnaa waxa la isku keenay gobolkii aan ku xidhnay xididka Oromiya la isku keenay Oromiya ku kulanay Soomaalideena saddex dumar iyo 5 wiil aan nahay saddex dumar iyo 5 wiil keenay Oromiya isku wada aragnay marka imika diyaar ma u tihiin inaad dalkii ku noqotaan alxamdulillah waxaan caawil soo koobi karin farxadeena mid la soo koobi karaan ahayn sababtoo ah mar hadii aan caawo waxaan deganahay central magaalada Hargeysa maxaa la jiray Tehran qof walba dalkiisa waxa u dhaafay male dalkii baa u macaanaanaya markii caqabad uu la kulmo waliba hadana uu kula kulmo meel uusan xiriir dawladda Soomaaliya uusan kala lahayn markuu caqabad kala kulmo wuxuu dareemayaa cadaadis fara badan iyo dhibaato aad u fara badan oo xitaa dadkii isaga ay wada xirnaayeen ay dadkan wada xirneen markii laga dhex sooco waliba xitaa si qaas ahna loo atagtaago oo la dhibaateeyo waliba xitaa dad badan meesha Afghanistan Pakistan dad badan wada xirnaay dawladii lagu dhaw markii maalin la soo qabtay maalin labaad wala sii deynaya adigii oo lagu soo qabtay oo lagu rabay in dadkaas oo kale laga la mid dhigo badan iska xirna waliba xaq dad ku xirna dabcan waa dareemaysaa xaaladda markaas iyo wax badan baa isbedelay waliba xitaa waa ku xanuunsanay 6 qof baa waliba 8 qof 6 qof baa xitaa waliba sakaraad ah oo waliba ku xanuunsaday qaar kamid ah xitaa ay kooma wada galeen xitaa wax u qaban waayeen inay xitaa dhakhtar geeyaan ay daweeyaan xitaa inoo awoodi kari waayeen markaa ugu dambeyn dhalinyarta sidaad oo kale ay rabto inay tahriibto maxaad leedahay insha Allah waxa u sheegaa in macnaha in tahriibku in maanta in faa'iido san lahayn tahriibka in markii afka laga sheegay in lagu sheegay kaliya in daqiiqado yar aad meel walba aad ku tagayso laakiin inaysan taasi jirin wax walba ay rafaad badan leeyihiin dhibaato badan ay leeyihiin waliba xitaa xuduudaha markaad ka gudbaysay rafaad markaad marayso xitaa in ay toogasho xitaa ay jirto la istooganayo marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada hadda soo baxaysa war dalkiina waxa idin dhaamo male dalkiina aamina أنا إن شاء الله waxaan rajayn doonaa dawladdeeda in waxyaabo badan nolosheeda ay ka bedesho ay dawladdeedu ay xaaladda u soo baxay ay wali inay taagan tahay ayadana marqaati ka tahay in insha Allah ay shaqo abuur noo wada sameeyay Ilaahay ka rajaynayna kaasi waxa uu ahaa Deeq Maxamed Cali